السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومضى الصوماليين داويسو ما يرو الباد جوكتين وسلامنتهين سلام دبديدة صوماليا وحيتري من الدنيا جوغا وحق تكون لابن مقلبات إنا نانوغو هيسو لابتو موقال فيديو بان داوضي oo laysoo diro laysoo gaarsiiyay madax kala guuri u riday madaxii xanuunay oo waseexo waay gabar walaasheeya oo dhahayso anigu yaan lay duugin geed korkiis halay saaro waxaan maqli jiray hebela qabrigiisa sii qotay waxay tiri walaashay waxay ku dardaarantaaba anigu yaan lay duugino geed korkiis halay saaro meesha aniga aan ku dhashan jeclaan lahaa in geed lay saaro geed korkiis halay saaro mugle ila daawada waa kanaa أنا والسلام يا سلامة الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحنا بعالكن إن مكجها الله إن أرحين أدي مهمة وهاي ترنتي أنا مدبر إنك فكري إلا يرام تيدي إلا هالضبط إلا مركزتان أدي فكرتي إن هو عندنا سنة ترنتي إن هو بدلنا إذا كم بدورنتي عن كوير عرفتي دوّن هاي لكن muhiimadeedu waxay tahay horta anigu waxaan rabaa inaan soo gudbiyo taas aniga aad ay u muhiima sidaan la soconaba adduunyadan waa lagu soo kala horeeyaa waana lagu kala dambeeyaa anigu se waxaan hadda maanta halkan soo fariistan codsanayaa waxay tahay in ilaahay subxaana watacaala maalintuu i oofsado oo kolley dadna waa iga dambeyn doonaa dadna waa iga horeyn doonaa wax iska caadiya laakiin anigu waxaweyaan waxaan codsanayaa maalintii ilaahay i oofsado ee ajasheedu dhammaato ee aan dhinto inaan wax qabri alle ii qodin inaan lay aasin arrintan waxaan ka fekerayay runtii muddo aad iyo aad u fara badan dhinaca diintan ayaan la iila cararin markiiba sababtoo waxa weeyaan diinta islaamka oo aniga aan ku dhashay ee aniga aan jeclahay ee aan ku dhiman doono insha Allah si wanaagsan uma aqaano ilaahay subxaanahu wa ta'aala ha ii kaso inaan si wanaagsan u barto insha Allah ma sha Allah waay gabadha waa rayda minayba leedahay diinta waa bara ilaahay ku fududeeyo laakiin anigu waxaan kugu darsaa waxaa doortaa tiri geed korkiisa laygu aaso islaamnimadaad ku dhalatay adimaad doortay waa maya bini aadanka ilaahay ka dhigaa joogo mahad ku dhimaysid iyo mahad joogtid iyo hadda waxaad qabaysid iyo wax walba soo socda iyo wax walba dhici doono aad waxba lama socotid ilaahayna waa uu yiri wama tadri nafsun maada taqsabu qadan waqtiga soo socdo waxa adigu aad kasbaysid lama socotid wama tadri nafsun bi ay ardi tamut iyo adigu halka aad ku dhimaysidna lama socotid marka wax walba in Allah alimul khabir waay asaaku cilmi leh marka anigu ku duceeyaa ilaahay ku fududeeyo fiidiyoyaal fara badan oo aan daawadaa jiro fiidiyoyaashu waa fara badnaayeen hal fiidiyo baan ka soo qaatay igaar boodhari caashiq la yiraahdo oo hay muddo dheer aan wada shaqeyn jirnay igaarkaas si maadiya iyo si diiniyaba labadaba ugu hadlay si aqli gal ah diina waa soo qaatay maadina waa soo qaatay waxa asturada loogu tala galay maydka oo ku sheega sirriidan adigi ila fiirsada waan garaacay markiiba qarra wadeeqayo war maxay sawirnaadeer waxaan ku waa sidee waxay arrintan aad ka hadlaysid hal yaan lay aasin inaadan waa ku sidee qof islaama baa tahay shariicada islaamka sheegaysa ilaahay baa quraankiisa ku sheegay diinta islaamka baa sheegaysa axaadiisteena waxaan arkay mid cilmaaniya oo magac baasli ina dalmeer baa liyaada oo cilmaani iyo alla kood ma wuxuu yahay oo le diinta islaamka ma sheegin in qofka la aaso shariicada islaamku waxay sheegaysaa qofka muslimka ah ee dhinta ee geeriyooda inta la maydho oo salaatu jinaasa lagu tukado in qabriga la dhigo saddex walxaataba sabab bayna u tahay in loo dhigo kow waa qof muslima markaan dhika maadiga aan kaaga fiiriyo xitaa aayaadka iyo xadiistu way dambaysaa laakiin aayaadka intaan ku gaarin bal xagga maadiga xitaa iyo insaaniyada kow qofka iyo ixtiraamka qofka kow qofkan waa qof bashara
وبني آدم إلهي كرامي لما وقف مسلمة أو قف بنتي أو ميدة عورديسي إن بهر جلان أو دحر جلان وهذا عنتو وحيكوتها يعني إنكار يعني واحد فورهم بيكوتها قف مسلمة أو بنتي أو دبت لدقي أو قرمي أو دحر جلاي أو حويج هذا عنيسو إيه قفك مسلم كرامدي سيد وحيلا وين كوتها يا هرت قبصو dadkiina xayawaanka ama sheegay talabaad qof muslima saxada bini aadanka caafimaadka uma fiicna qof muslima oo dhintay oo soo uray oo bini aadankiina wax yeelaynaya oo caafimaadka wax u dhimaya la leeyahay war wuxuu qarmuunaya war hebel qarmuuna heblaay qarmuuna qof muslima oo dhintay oo ashaadanaya oo dhintay oo la leeyahay war hebel waa uraya eege iyadana karaahiye ku tahay بيئة لفتر كذا وحي كنتها دباتو تاسوا وحق عقلية يا إنسانية دا يا الدين تدور بمركان كيجي إلهي آيات يسمعون كلهم ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء شرع إيه ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء شرع إيه فأقبر محيته ثم أماته فأقبر محيته ما معنى فأقبر هلا شرح لما أرن هلا قال لما أرن هلا قبل لما أرن إيه هلا أسبالي وقبري وي ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء شرع كيتا دبديدنا مرك الله أصو إلهي أيات دبسو صارية ثم إذا شاء شرع ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء شرع أنا يا دبسو نورينا ودبسو صارينا حاجة لك سو صارية وقبري قوي قبري قال لك سو صارية إيه إلهي ما مرك القرآن كيسو كل يوم ثم أماته فأقبره قفك مسلم كأمركو دنتو إيه انت الله مايدو أو صلاة الجنازة اللي قلت كذا إن هذانا وحوي قبرك الله ديجو أو ولي باللحد لو سمي اللحد حال لحد كله مسمي أنت ولي بالشرعات وعشايسة إن قبرك الله ما بتري صدق من أنت اللي قاضي كره اللي قاضه ده اللحد لو سمي محل إلى ليا كو قف بأدي ولا إلى ليا يدتك يا عافماتك كرامتي قفك الله إلى ليا قف مسلمة أو دنتي أو تكذي أو شهادنية أو قلوب تسدين تكبحدو أنت الدبل ديجو أنت حريقلو أو هذا عنتو أو أورو أو بنادك يبصلو أو صوت قرمون كسل ده غافرة مركا حقوري أنت يعني كبلا وحقوري ده غوي إنابتي شيطانك اسكنا حتى سوى كيو زينا ما هيكونوا شيء ولا شيء ذا dadka kula nool agteeda waxaan kula dardaarma inay diinta ugu nasteexayaan diintu waa nasteexo waa naxariis isku roonaasho qof walba oo cilmi leh ee iyada agteeda joogo oo haddana islaama walaalayaal waydan tuugahay gabadha madaxa loo dajiyo waxaan khuraafaadka nafsar sheekaysiga ay iska dhaadhicisay bal ka suuliye oo sir nidaam oo raaxo leh miyaan la caynin diintay ka baxdayaan la dhihin waydan tuuga cayda kala aala idinka si tartiiba wax ugu sheega horta hore bini aadamku ayagu adduunka iskuma dooran adduunka ilaahay jina u keenay insi waa jooga xayawaanaa jooga buuraha ku nool wax walba adduunka jooga wax walba ilaaha goonidiis u doortay aayadan way ku leedahay in allah ala kulli shay'in qadir wax walba qadar ilaahay ku dhacan marka waxaa idin leeyahay walaalayaalow gabadhan walaasheeya haloo nasteexeeyo diinta islaamka nasteexa waaye ee u nasteexeeya dadka kaaga dhawow wayna tuugaah anigu rabtaasan idinkaga baxay